okay boqolkiiba boqol waxaan hubaa marar badan waxaa aragtay wiil dhalinyaro ah isla markaasna da'diisa ay yar tahay oo bidaar leh ama hadda ka bacdi ee bidaar soo galayso ama waxaa laga yaabaa adiga fiidiyowgan fiirsanayo inaad bidaar leedahay ama hadda ka bacdi ay kugu soo socoto weligaa ma isweydiisay waxa keeno ninka inay bidaar gasho weligaa ma isweydiisay waxa keeno adoo da' yar inay bidaar ku gashay bidaarta dhaxal miyaa cudur miyaa dad badan waxay aaminsan yihiin bidaarta macnaheeda inuu yahay testosterone oo waxay aaminsan yihiin dadkaas qofka uu ka testosterone badan yahay bidaartiisana inay ka weyn tahay waxyaabahaasoo dhan ayaan fiidiyowgan ku falanqeynaynaa marka adiga fiidiyowgan fiirsanayo waxaan kaa codsanaa haddaa bidaar leedahay commentiga inaa igu soo qortid waqtiga ay bidaarta ku soo gashay haddaa bidaar lahayn oo timahan oo kale aad leedahayna bal iyadana commentiga igu soo qor soo dhawaada mininkiini waaye marka hadda su-aasha ugu horeyso isla markaasna isweydiiska mudan waxay tahay horta maxaa keeno ninka ragga ah inay bidaar gasho ninka ragga ah inay bidaar gasho waxaa keeno genetics iyo hormones ninka ragga ah jirkiisa waxaa ku jiro testosteronekaas ninka ragga ah jirkiisa ku jiro qayb ka mid ah jirka wuxuu u bedelaa dehydrotestosterone iyo testosterone waa laba wax oo kala duwan dehydrotestosterone wuu ka awood badan yahay testosteroneka sababtoo ah waa androgen marka dehydrotestosterone wuxuu active ka yahay maqaarka prostataha hair follicleska iyo xubinta taranka ee ragga marka sababta ragga qaar ee bidaar u gasho waxay tahay ragga qaar waxay sensitive ku yihiin ama jirkooda wuxuu sensitive ku yahay dehydrotestosterone maadaama hore aan usoo sheegnay oo aan dhahnay dehydrotestosterone wuxuu active ka yahay hair follicleska xididaha ama rootska ay timaha ka soo baxaan qaybtooda kore ee madaxa qaybtan ku taalo taas waxay keenaysaa maadaama ay sensitive ku yihiin dehydrotestosterone timihii inay isku soo kaduutaan yaraadaan marka dambena laciif noqdaan ugu dambeyntana ay gaarto inay soo bixi waayaan markaasna waxaa imaanayo waxaanay dhahaan androgenic alopecia aka bidaar marka maadaama hadda aan wax ka soo fahanay waxaa keeno ninka ragga ah bidaar inay gasho haddana waxaa fiican inaan wax iska weydiino bal maxay tahay sababta ninka ragga ah asoo weli da'diisa yar tahay inay bidaar gasho ragga ay bidaarta gasho dhammaantood isku si sensitive ma ugu ahan dehydrotestosterone haddii adigoo yar ee bidaarta ku gashay taas macnaheeda waxay tahay waxaa si saa'id ah sensitive ugu tahay dehydrotestosterone qofka markuu si saa'id ah ugu yahay dehydrotestosterone sensitive taas waxay keenaysaa yaraanta inuu bidaarta ay ku gasho laakiin ragga qaar bidaarta waxay gashaa markay ku dhawaadaan ama gaaraan 40 raggaas dehydrotestosterone si saa'id ah sensitive ma ugu ahan taasaa keenayso bidaarta inay gasho waqti dambe marka sida dhaqsada ah ee bidaarta kugu galayso waxay ku xiran tahay sida saa'idka ah aad ugu tahay sensitive-ka haddii aad si saa'id ah dehydrotestosterone sensitive ugu tahay bidaarta adigoo yar ayay ku galaysaa haddii aadan saa'id ugu ahayna way kaa soo daahaysaa oo tartiib ayay kugu soo galaysaa waxaa laga yaabaa bidaarta markaas inay ku gasho markaa gaartid ama ku dhawaatid 40 su-aasha kale isla markaasna isweydiiska mudan waxay tahay bidaarta ma la iska dhaxlaa jawaabtu waxay tahay haa aabbaha hadduu bidaar lahaan jiray adeerkaa hadduu bidaar lahaan jiray ama awowga aabbaha aabihiis hadduu bidaar lahaan jiray waxaa laga yaabaa adigana inaad ka dhaxashid oo bidaar yeelatid laakiin dadka qaar way isku khaldaan ma og tahay abtigaa xataa hadduu bidaar lahaan jiray ama hooyada aabbaheed hadduu bidaar lahaan jiray iyada xataa waa dhaxli kartaa oo markaas bidaarta dhanka hooyada ayay kaaga imaan kartaa arginka controlayo sidaa sensitive-ka ugu tahay dehydrotestosterone wuxuu ka imaanaa chromosomka X chromosome X waa DNA-ga hooyada ka imaanayo mararka qaar dhaxalka wuxuu ka imaan karaa dhanka hooyada macnaheeda ma ahan dhaxal oo dhan inuu ka imaanayo dhanka aabbaha waa laga yaabaa aabbaha hadduu bidaar lahaan jiray adigana inaad bidaar yeelatid ama awowga aabbaha aabihiis hadduu bidaar lahaan jiray adigana inaad yeelatid waa laga yaabaa ogow tanna abtiga ama hooyada aabbaheed hadduu bidaar lahaan jiray iyadana waa laga yaabaa inaad dhaxashid bidaartaas oo adigana bidaar ay yeelatid marka waxyaabo badana keeno
qofka si degdeg ah timaha inay uga dhacaan. waxyaabahaas waxaa ka mid ah hurdo xumida, raashin xumida, stresska, daawooyinka qaar iyo qofka oo isticmaalo anabolic steroid. qaar badan oo videogan fiirsanayo waxaa xiisaysiin jirdhiska. ragga professional bodybuilderska marka aad fiirisid qaar badan oo ka mid ah bidaaray leeyihiin ama timaha way ka bideen. sababta maxay kula tahay bal? sababta wax kale ma ahan, waxay isticmaaleen steroid. qofka steroid markuu isticmaalo waxaa imaanayso inuu kor u kaco levelka dihydrotestosterone. qofkiiyo markiisii hore sensitive ku ahaa dihydrotestosterone hadduu levelkiisa kor usii kaco waxaa imaanayso qofka si dhaqso ah bidaar inay ku gasho. marka adiga videogan fiirsanayo haddaa islahayd steroid isticmaal, ogow waxaa daris kula soo noqonayso bidaar. marka khalad ay fahmina, qofka hadduu bidaar leeyahay isla markaasna jiimka aado macnaheeda ma ahan qofkaas steroid inuu isticmaalay. dad badanoo waxaa jiro jiimka aado isla markaasna bidaar leh steroidna aan isticmaalin. marka hadda su-aasha kale oo isweydiiska mudan waxay tahay xalka muxuu yahay? haddii aad tahay qof dhalinyaro ah isla markaasna aad dareentid bidaar inay kusoo galoysid, waxaa kaliya suubin karto wuxuu yahay inaad dhakhtar u tagtid, dhakhtarkaasna uu kaniin kuu soo qoro. kaniinkan dhakhtarka bes kuu soo qori karo, magaciisa waxaa la dhahaa Finasteride. Finasteride wuxuu blogareynaa dihydrotestosteronka. dihydrotestosteronka levelkiisa ayuu hoos u dhigaa, taasna waxay keenaysaa sida dhaqsada ah ee bidaarta kuu galaysa inay soo yaraato. laakiin kaniinkan maadaama uu hoos u dhigaayo levelka dihydrotestosterone wuxuu keenaa low libido oo kacsi la-aan ayuu kugu ridaa. marka taas aday kuu taalaa haddii kacsi la-aan aad dooran lahayd ama haddii aad bidaar dooran lahayd. runtii go-aan adag waaye, labadaba xanuun waaye. laakiin dhakhtarka waxaa kale uu suubiyaa markuu kaniinkan kuu soo qoro side effectgiisa marka aad dareentid wuxuu kale kuu soo qori karaa Cialis ama Viagra. problemkaagana kaasaa xalinayo. haddii kaleetana kaniinkan dhan iska dhaaf, bidaarta ha ku gasho, lacagta barbieriga iyo lacagta shaambada aa ku baaqanayso. marka haddii aadan rabin kaniin inaad isticmaashid waxaa kaloo jiro xal kale. waxaa jirto bahalay dhahaan minoxidil. waxaa laga yaabaa qaar badan inaad taqaaniin. minoxidil bilowga markii bidaarta kusoo galayso haddaa isticmaashid waxaa laga yaabaa inay wax kuu tarto. minoxidil markaa madaxa marsatid ama meeshay bidaarta kaa gashay markaa marsatid waxay fiicnaysiinaysaa wareega dhiigga. taasna waxay keenaysaa meeshaas aa marisay inuu soo gaaro oxygen iyo nafaqo. oxygenkaas iyo nafaqadaas oo meeshaas soo gaaray waxay keenayaan timaha inay nafaqeeyaan oo tintii xoogaa ay weynaato xogaana adkaato. taasna waxay keenaysaa processkii ee bidaarta kugu galaysay inuu noqdo mid tartiib ah. marka halka ugu dambeeyo waxa uu yahay turkigana aadid oo qarash guurtid isla markaasna timo aad soo beeratid. ogow haddaa aadid waqti dambo, waqti xididihii ama rootskii timaha ay kasoo baxayeen ama follicleskii waqti ay dhinteen haddaa aadid, markaas waxaa laga yaabaa inaad weysid wax problemkaaga xaliyo. mideeda kale bidaarta wax weyn ma ahan. haddaa bidaar qabtid bidaartaada iskaga qanac, murqana dhiso. runtii bidaar markaa leedahay lacag badana kuu baaqanayso. bal fiiri, qofka timaha leh bishii meeqa jeer ayuu timajaraha aadaa? waxaa laga yaabaa 2 jeer inuu aado. 2daas jeer lacagtii kaaga bixaysay markay kuu baaqato, lacagtii shaambada markay kuu baaqato, waxaa laga yaabaa tartiib taajir inaad ku noqotid. fiiri, 100% waa ku dareemaa bidaara ku gashay. qof timale markaa aragtid xoogaa maseera ku galaayo. waa ogahay qaar badan oo videogan fiirsanayo waa iga maseersantihiin. waxaa leedihiin Marole Muscle timaha uu haysto waa fake, buruuka u xiran. laakiin taasoo kale xaasidnimo waay. qofka haddii uu kaa genetics fiican yahay, kaa timo qurxan yahay, inaa xaasidid ma ahan. marka xaasidnimada iska dhaafa. timahan genetics fiican aan leeyahay darteed aan u helay. marka xaasidnimada iska dhaafa. waa ogahay qaar badan hadalkayga ma aaminaysiin. waxay ahaataba videoga meeshaan kusoo gabagabeynaa. balanteenu waa Turkiga. waa dami Soomaha burukada waa iska bixiyay. hay ceebeenaya dami.